السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلامي دمانتين ميل والباد جوجتان. markii hore qisooyinka waxaan ku ballanay inaan jimaha oo kali soo jeedin doono maalmaha kalena aan ka dhigi doono sheekooyinkii horarka ah balse hadda waan isku dhex wadi doonaa horarka iyo qisooyinkaba sababtoo ah dad badan ayaa iga soo codsaday inaan u soo gudbiyo qisooyinkii shalayta aan soo gudbiyo kaleeto insha Allah taala hadda kadibna waan isku dhex wadi doonaa maantana waxaan idin soo gudbin doonaa qiso aad u murugo badan. سلمى waxay dhiganaysay kulliyada lagu magacaabo adab waxayna isguursadeen wiil ay isku kulliyad dhiganayeen guurkaasina ma ahayn mid weyn ee waxa uu ahaa mid qarsoodi ah 2 sano kadib guurkoodii ninkii ayaa u sheegay arrin farxad leh taasoo ahayd inuu bixi doono uu dalka dibadiisa u aadi doono shaqo aad ayay ugu farxday waxayna ahayd habeen aad ugu weynaa waxayna joogeen hotel ka mid ah hoteelada ku yaal magaaladaas habeenkaasina waxay ahayd habeenkii macsalaameynta ninkii waa uu baxay 2 bil kadib gabadhii waxa ku soo baxay uur ayadoo shahaadadii qaadanaysa ayaa ku soo kacay uurkii ninkiina waa uu iska maqnaa uurkii ayaa ku sii weynaaday gabadha mana uusan la soo hadlin mana uusan u dacwoon sidii hore uu ugu balan qaadayba waalidiintiisa xitaa ma oga meel uu asaga joogo cunugu waa uu sii weynaanayay caloosha gabadhana waa ay soo weynaanaysay gabadhii tala farada way ka baxday wax ay samaysan waa ay garan weysay xalka kali ah oo hor yaalay ayaa ahaa inay iska soo rido cunuga ومنا aysan tagi karin dhakhtar ama isbitaal waxayna bilaawday in ay iska soo rido cunuga ay isticmaasho waxyaabo yar yar ah sida kaniin iyo waxyaabaha la mid ah maalmaha ka mid ah waa ay dhiig baxday waa ayna dhimatay waalidiinteedii iyo walaalaheedna ayaa arkay waalidiinteedina ma aysan ogeyn arooskeedii iyo uurkeedaba ay ka qarisay halkaas ayayna gabadhii ku dhimatay. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.